tabcaan gooraan nahayo Soomaalidu kala tag iyo tafaraq ay taagan tahay 13 wiil ilaah baa toosiyo talaana la waafajo tubtiiba nala tuso tiriig baa noo baxo xorriyad tamaan helnay ilaah baa taajire tallaaba aan qaadnay iyo tusmadii Soomaalidiyo tolmoona calankayagu calanka Soomaaliya taariikhda calanka Soomaaliya kama bilaabatay xilligii Soomaaliya ay ku jirtay maxamiyadii 60kii waxaa jira isku dayo badan oo ay suubiyeen ururkii Aswaa'il ka hor intaan loo dhiibin Soomaaliya Talyaaniga sida uu sheegay Cali Beerdure kadib dhisitaankii Aswaa'il waxay ku heshiiyeen oo dastuurkooda kamid ahaa calan Soomaaliyeed waxaana la uriyay calan leh bil tilmaamaysa islaamka iyo xidig u taagan midnimada Soomaaliyeed laakiin markii uu la wareegay Talyaanigu maamulkii Soomaaliya Ingiriisku waxa uu qaaday talaabooyin wali ah Ingiriisku waxa uu qaatay gobolada waqooyi oo hadda loo yaqaan Somaliland NFD waxa uu ku daray Kenya Djibouti waxa xoogay Faransiiska sidoo kale Ingiriisku waxa uu siiyay Ethiopia Soomaali galbeed isla markaana waxa arin adag noqotay in dhulalkaas iyo dadka degan bal isku keeno marka kadib Aswaa'il waxay ogaatay in Soomaali weyn faraha ka sii baxayso loona baahan yahay in la suubiyo calan qiimo badan oo ka turjumaya midnimada Soomaali weyn ka hor inta aan la gaarin xorriyadda 60ka farshaxano badan ayaa la sameeyay dad badan ayaa dadaalay tartan adag ayaa loo galay sidii loo hanan lahaa calan Soomaaliyeed laakiin waxaa la qaatay hindisii oo lahaa Maxamed Cawaale Liibaan Cawaale waxa uu ku suubiyay calanka Soomaaliyeed in ka yar 24 saac waxa uu noqday calanka matala ama ka turjuma ummadda Soomaaliyeed xadigta caadi waxay tilmaamaysaa 5 qaybood oo ka kooban yahay dhulka Soomaalidu degto halka midabka buluuga qafiifka ahina uu ka turjumayo cirka iyo badda ummadda Soomaaliyeed oo mar walba buluug ah calankaas waxaa la sameeyay 12 Oktoobar 1954 ساحركي كالقوفة سرعي من صغامة أنسدو يحي إغنوي كان سيبك نصاري maalinkaas kadib Soomaalida waxaa ka turjuma calankaas oo astaan u ah Soomaali weyn iyo midnimo qaran 2 sano kadib urinta calanka waxaa la alifay heesta calanka oo miraheeda lahaa Abwaan Xuseen oo Faarax Dhubad waxaana kamid ahaa miraheeda maanta waxaa hubnaa in damiirka qofka uu ka cayo maqalka heesta calanka iyo astaamaha qaranka oo dhan laakiin maanta ma lahan calanku maqaamkii uu taagnaayay milkihiisii dadka waxaa loo qaybiyay qabiilo gobollo mana jirto 2 qof oo isku fikir ah 2 qof oo ka sheekaysta midnimada Soomaali weyn halka dadkii hore ay ku faani jireen calanka ciidanka iyo Soomaalinimada maanta waxaa nasiib daro iyo wax laga xumaada in qof jinsiga Soomaaliyeed sheegtay oo ku tilmaama calanka waa malaawaal iyo calaamad sheegay midarbaan horow galay niyadaydu waa meel midarbaan horow galay niyadaydu waa meel
هديانا سنقل على كيغ نورو الله يوسف نبت قالي